بشراكم شهر الصوم أتاكم بشراكم يا أهل الذكر اللهم اقبلنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاميلي أم شاك aad u mahadsantiin 10,000 subscribers wax yar maaha mafahantiin. waxaan rajeynaa insha Allah bishan gudaheeda inaan 20,000 ugu gaarsiisaan Ramadaan Kariim, Ramadaan Mubaarak. bisha Ramadaan ay maanta mafahantiin insha Allah inaan ka faa'iideysan ayaan rajeynaa. haatan waxaa insha Allah ni soo diin doonaa muuqaal madaxweynaha uu soo diray Ramadaanka uu ku soo diray mafahantiin. muuqaalkaas ayaan daawasho wacan. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحن هنبليو يدعو كؤادا بشان بركيسان رمضان عن أدريا دمان دتك الصوماليات إيو ومدى مسلمين تاه بشان صنقاتك ومد كمد تيرارك إسلامك وكسنتن عبادة توبة إسعافنتا صدقة تاكولينتا دتك دانتير إيو اسكو نحريس الشضر دحديناه oo ka mid acmaasha ugu wanaagsan ee loogu dhawaado Alle. walaalayaal sida aad la socotaan dalkeena waxa uu la tacaalayaa saameyntii abaaraha ee dhibaatada weyn ka soo gaartay kumanaan qoys oo reer guuraa ah gudaha dalkeena iyo caqabadaha dhaqaale ee caalamka ka jira. saas awgeed waxaan idinka codsanayaa inaynu badino ducada iyo iscaafinta inagoo Alle ka baryana inuu dalkeena iyo dadkeenaba barakeeyo. sidoo kale fadliga bishaan barakeysan awgeed waxaan ugu baaqayaa dadka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan gudaha iyo dibadda in ay xoojiyaan caawimaadda iyo garab istaagga qoysaska danta yar, gaar ahaan qoysaska u nugul culayska dhaqaale ee bishan. waxaan kaloo ugu baaqayaa ganacsatada Soomaaliyeed inay u naxariistaan dadkooda oo ay doorkooda ka qaataan ka hortagga sicir bararka badeecadaha iyo adeegyada, taas oo mas'uuliyad wadajir ah oo diinta iyo dhaqanka suuban ay nafarayaan. hay-adaha amniga waxaan farayaa inay feejignaan dheeri ah u yeeshaan dhagarta iyo falalka guracan ee ay soo maleegayaan argagixisada Al-Shabaab. shacabka Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa inay la shaqeeyaan ciidamada qalabka sida qaybahooda kala duwan ee u taagan sugidda amniga dalka, ilaalinta nafta, sharafta iyo hantida dadka Soomaaliyeed. Alle ha inaga aqbalo cibaadada iyo camalka suuban, hana waafajiyo khayrka bishan barakeysan, qalbigeena ha ku xoojiyo isjacayl dhexdeena dalkeena mid nabad ah oo ku tilmaaman horumar iyo barwaaqo. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.